Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafic Show. Waa 9 bisha shanaad 2026 qodobada qaybtan aan idinkugu hayna waxa ugu waaweyn. Wargeyska Israa'iil ka soo baxay ee Dacood Axranoth ayaa ku warramay inay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad la wadaagtay Trump inta uusan qaadan go'aanka duulaanka uu ku qaaday dalweynaha Iran. qorshe ay ugu sheegeen haddii uu ku dhaqaaqo si dhaqso ah inuu ku burburin karo dalweynaha Iran. qorshaha Mossad ee wargeyska uu baahiyay ayaa sidaan u dhignaa in dagaalka lagu bilaabo dilka iyo sifaynta hoggaanka Iran kadibna gudaha Iran laga bilaabo dagaal dhulka ah iyadoo la adeegsanayo xogaga wakiilada oo Kurdiyiin ah tan oo ay xigto in mudaharaadyo laga kiciyo wadooyinka Iran ugu dambeyntiina lagu dhawaaqo afgambi hoggaanka cusubna la bedeli karo nidaamka oo dhan. Laakiin warbixintu waxa ay sheegtay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka DJ Vance uu ka hor yimid qorshahaas, waxaana sidoo kale la sheegay in madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan in uu wacay Trump isaga oo ku qanciyay inaanan la adeegsan karin xogaga Kurdiyiinta. Xaaladdan waxa ay badashay Trump oo markii hore dagaalka galay arkay qorshaha Israa'iil mid aanan shaqaynaynin maadaama sida uu soo bandhigeen ama ay u soo bandhigeen dagaalka ee la filayay si degdeg ah in loogu soo afjari karo gabi ahaanba ay sheegeen inaysan socon karin. Wuxuuna hadda Trump raadinayaa hab uu dagaalka uga bixi karo. waxa warbixinta ay tilmaantay inuusan jirin niyad ama niyad wanaag ku aadan in dagaalku uu sii socdo, taas oo dhalin karto in Mareykanka si degdeg ah uga baxo dagaalka sida waxyaabaha maalmahan soo baxayba ama wararkii hore baan idinkugu sheegnay. baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. Hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto, waxna lagu barto, laguna safro adduunka oo dhan. Haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan, barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. Macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kugu baraya macallimiin xirfad leh iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. Haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo, ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp ee hoose. dhinaca kale warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabatayn lagu soo rogay 10 qof iyo shirkado ay ku jiraan hay'adaha fadhigoodu yahay Shiinaha iyo Hong Kong, kuwaas oo ka caawiyay Iran dadaaladeeda military ee lagu soo iibinayo hubka iyo agabka ceyriin oo loo isticmaalo sameynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shaahid. sida ay sheegtay Reuters, talaabadan ay qaaday wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa timid maalmo yar ka hor safar uu qorsheynayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku tagayo Shiinaha si uu ula kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping xilli dadaaladii lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka Iran ay hakad galeen. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay weli diyaar u tahay inay qaado tallaabooyin dhaqaale oo ka dhan ah kaabayaasha warshadaha militariga Iran iyo sida Tehran aysan dib u dhis ugu sameynin awoodda wax soo saarka ama aysan u ballaarin saameynteeda meel ka baxsan xuduudaheeda. wasaaradda waxa intaas ku dartay inay tallaabo ka qaadi karto shirkad kasta oo ajnabi ah oo ku lug leh ganacsiga sharci darrada ah oo lala yeesho Iran oo ay ku jiraan shirkadaha diyaaradaha isla markaana si aysan wax soo saar u sameynin. cunaqabatayn labaad ee hay'adaha maaliyadda ee shirkadaha ee taageera howlgalka Iran gaar ahaan kuwa xiriirka la leh warshadaha sifaynta madaxa bannaan ee Shiinaha oo loo yaqaano T-Bots. annagoo raacayna hoggaanka adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxa aan sii wadi doonaa ilaalinta amniga Mareykanka, waxaana bartilmaameedsan doonaa ay yiraahdeen dadka iyo shirkadaha shisheeye ee hubka siiya militariga Iran si loo isticmaalo ama loogu isticmaalo ciidanka Mareykanka, ayuu raaciyay xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Scott Bessent. warka soo baxay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa lagu sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukraine in uu yahay mid xaq ah
khudbad uu ka jeedinayay bandhigga sanadlaha ah ee militariga ee ka dhacayay Moscow waxa uu ammaanay askarta Ruushka isaga oo sheegay in ay ka hortageen awood gardarro ah oo ay hubeeyeen NATO iyo dalalka garabka ku siinaya Ukraine. Bandhigga Victory Day ee sanadlaha ah ee Moscow ka dhacaya ayuu ku soo beegmay sanadkan xilli xabad joojin 3 maalmood ah lagu dhawaaqay Ruushka iyo Ukraine, taas oo ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweyne Zelensky ayaa amray in ciidamadiisa aysan beegsan doonin xafladaas, taas oo lagu xusayo guuldaradii Naaziga ee Jarmalka. Sanadkan xafladda ayaa si weyn loogu yareeyay sabab la xiriirta dagaalka socda.